mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Nowdal waxaa ka socday mashaariic dhanka horumarka ah oo lagu horumarinayo magaalada Boorama iyadoo sanadihii ugu dambeeyana Boorama ay ka hirgaleen wadooyin laami ah kuwaasoo la jaan qaadaya magaalooyinka kale ee Somaliland sidaasoo ay xaaladu tahay Boorama waxaa ku soo badanaya dadka qurba jooga ah ee ku soo guriya noqonaya gobolkan Nowdal kuwaasoo ka hirgeliyay qaarkood gobolkan mashaariic dhanka horumarka ah iyo adeegyada bulshada gaar ahaan ganacsiga qurba joogan qaarkood waxay ganacsiyo kala duwan ka sameeyeen gudaha Boorama taasoo keentay horumarka ay Boorama ku talaabsatay sanadihii ugu dambeeyay qurba joogan ganacsiga ka sameeyay Boorama waxaa kamida xarunta macmacaanlaha ee loogu magac daray Scandinavian ee ku taala bartamaha Boorama taasoo ay hirgeliyeen Cali Macalin Aadan iyo marwadiisa Duniyo Xaashi Maxamed oo kamida qurba jooga wadamada Yurub in badan ku soo dhaqnaa kuwaasoo imika maciinbiday inay ganacsi ka furaan bartamaha Boorama xaruntan waxa aad u soo buux dhaafiya dhalinyarada qaybahooda kala duwan iyo dadka waayeelka kuwaasoo ka soo raadsada raashinka noocyadiisa kala duwan isla markaana ku qanca adeega halkaasi ka socda qaar kamida dadka macmiisha u ah xaruntan Scandinavian ee bartamaha Boorama ku taala ayaa waxay ka warameen dareenkooda ku aadan horumarka Boorama sanadihii ugu dambeeyay ka socda iyo qurba jooga ku soo guriya noqday Boorama iyo talaabooyinka dhanka ganacsiga oo ay Boorama ka hirgeliyeen adeega nasiibadiya shaqada ugu faraxsanahay qortaanka ana Scandinavian fast food waxyaabo badan u soo kordhisay marka aad ugu faraxsanahay waa la qabsanahay waa soo dhaweynaa shabeelka ay jirto تريان هذه الحاجة السعودية أونلاين كل عطية بدنا ومجال الأقوى ولا كياني كميزان يسوي عليه شيء بعد هو أحسن وانا سولو إنه ده معمشنا waxay buuxisay kaalin ka maqnayd iyadoo keentay cuntooyin aan hore loo isticmaali jirin beerta Boorama oo runtii aad dadka uga dhaceen dadawle carafne asasii waxa la yiraahdo kun soo dhaw Scandinavian cafeteria waxaan maalin kasta soo socdaa sharaabka sida boobo shii ugu soo qaaday oo la isticmaalay sidoo kale milkiilayaasha xaruntan Cali Macalin Aadan iyo marwadiisa Duniyo Xaashi Maxamed ayaa iyaguna waxay ka warameen sababaha ku kalifay inay Boorama xilligan ka hirgeliyaan xarun ganacsi meesha waxa la yiraahdaa Scandinavian fast food waa makhaayad ayaan ka sameynay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay dadku la codsadaan inagu maqaayada markaan furnay waxaan u furnay inaan dadka qurba joogta ah wadankii Soomaaliya dib loogu noqdo wadan hodan laguna noolaa karo inagoo muddo dheer ku noolay wadamada reer asalka Scandinavian-ka Sweden ilaa iyo sagaashamaadkii ku noolay kadibna dib u soo noqday dalkan ay hooyo oo halkaan inaan waxna ka qabano ilmaha nagana ku doosano hooyinka waxaa ka mid ah macmacaanada sida doonal oo kale beegarka ugu jira chibiska ama pomfritka waxa la dhaho waxaan ku soo dhaweynoo kale hooyinkii reer Muqdisho ka mid tahay buufada waa aan Boorama laga aqoonin waxaan kaloo sameynaa pasta lasagna waxaan kaloo sameynaa macaroni cheese oo alforna waxaan sameynaa kalluunka waxyaabo badan oo aan magaalada hore ay ayaan ku soo dhaweynay si kastaba haatee qurba jooga Boorama ku soo guriya noqday waxay mudooyinkii ugu dambeeyay Boorama ka hirgeliyeen ganacsiyo kala duwan kuwaasoo daboolay baahiyo fara badan oo bulshada Boorama ku dhaqan ay u qabeen ganacsigaasi oo ahaa kuwa ka maqan Boorama Cabdi Fataax Axmed magaalada Boorama